الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم معنا وناكسن دعوة ديال كسر دعوة برنامج كينج فلقيت التطبيقات أو كذا وطن بلش تي في تطبيقات كم حنا نقوم مرتب برنامج الدنيا أقولها قلت ده سومال سليمان محمود عادن أو إنه كوري صندوقنا وحيابات تاجن قولها قلت ده وحيابات سكب الدليل من تدي وحلقة هي يقول بس سياسة ذاك الدنيا تلك تاجن قدومي سليمان محمود عادن كسر دعوة بلش تي في أدوه قدومي هذين كبلونا برنامج كين قدومي سليمان محمود عادن وقدومي أقولها قلت ده أنت بدنا ولا ذكرني بل هذا يدي بقول يرنا قطة أما تذكر حسوس تاريخ من الله كا قدومي سليمان حقو كل شيء حقو وحكو برتي حقو شقة كبلابي كورن سياسة السوق بل يرى هرلا هذه قرر عليها تنقص والله قررنا إنه أنا واحد شاكتاين أنا بكل شيء أنا بنا ملا تقدرون بكمية أحد ما هي صول بريور هسه برشة إلمن تريق هرجيسان قبلها لو تدوشر الله كاني إلمن تريق يوصد حسن ضوضها أفر الترميديت كي انتا وحان قواطي هرجيسي عمود سكندرينا عمود وما بورا ما هيد تبتنا قلبي ما انت وحي كدمي وقسي سؤال مرات دبده وحو برشو جامعadeedu tago iyo maraan shaqo bilaababa muqdisho baan ka bilaabay markii shaqada macallimaan ku bilaabaanu soo rafaaday 8 sanadood baan macallin secondary school iyo maamule ahaa dabeetana xafiiskii manaahijta waxbarashada agaasimaan ka noqday dabeetana 75 baan noqday agaasimo guud awalkiisii wax jira ma yaalahayd wax jirana ma idin lahayn hawsha malaad agaasimaha guud baan ugu waxtar roona idinku intii halkan unbaa inoo tirisaan aniga cimrigayga dee xaggaas buu u badnaa waxqabad iyo wax soo saar iyo production markaan manaahijta joogay iyo markaan agaasimaha guuda baan runtii ugu badnaa wixii ka dambeeyey waa iska siyaasi ku sheeg waa iska siwaaf bishaareyn wey madaxweyne ku-xigeen waxaan leeyahay wasiir ku-xigeen baan ka noqday xaggoo dee shaqo maaha xalaala wuxuu ku fadhiyaa ku-xigeen gebigiisa ku-xigeen oo dhan ba waxba ku fadhiya rag baa igu qabsan doona ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenadiina waa buuxaano inay igu diidaan waa laga yaabaa laakiin ku-xigeen masaa saxiixba ma lihimi dabeetana anigii xaggaa qaaxa u kacay ogayaha arrimaha dibadda baan ka noqday xafiiskii london forinku london bua maan malaha sanad iyo barmiyah ahayn dalkaynu soo galay ka bacdi dabeetana waa anigii arrimaha gudaha noqday arrimaha gudaha maalnahooda fuuxinayno xaggii snamtaa lagu wanaagsanaayay markii dowladda noqday waa ti dagaalo sukaya ilaahay inoo diray ciqaab bay ahayd baasleh hadaynu waayo aragnimo ku qaadanayno inagii iswada cunay reerba reer tumaajiyey gudihiisa iska dilay cidhifyada weeraray waa luunba ilaa 96 qabadkeenu
wuu yaraa wixii sanamkas markii laga soo guuray ilaa 96kii waxaan filayaa markaas aynu nabadoonay umaynu salka dhigano bal inaynu dal leenahay oo u baahan yahay wax laga qabto baynu ka bilowna adduuweynana waxaan madaro ahayn inooba geysan ninka jiritaanka kuu diiday ee kuuri maba jirto waa adduun weyne anuma haysto xamar waa adduun weyne 30 sannadood baynu hadda lahayn waryaana waa jiraaye hana la aqoonsado xaggaasunbay ku mashquuleen xaggaana weli hadda ciribku ma arko inagu wax walba qabsanay malaa masha doorashaynu galay ilaa madaxweynihii ugu horreeye cabdiraxmaan tuur kii madaxweyne xigaal golayaashii dabeetana waatee lagu noqday doorashooyin dambana riyaalaa ka dambeeyey silaayo muusoo haddaa iyo golayaashan hadda jooga iyagana malaa waa cimriyeer iyagiina meesha waanu ku raagni ma jeclaysanayaan nimankan agtayda fadhiyaay waa lagu raagi 4 sannadood iyo siyeedo baa golaha guurtidu jira iyagu waxay ka soo qaataan 97kii habase ma kala foga iska cibro dheerarsiye ka kalena dee isna mar unbaa la doortay 15 malaa waa marayaan ayla tahay dadweyne in mar lagu noqdo waa agta ama hana dareersheen intan hore intiina joogta dee ha ama hana dareersheen ama hana soo ceshay labada golaba dabaa ka hadlay kan madaxweynuhu isagu xaraar bay butayseenoo iyagu doorashooyinka waa galeen laakiin waa sharci dejintii baa salka ku adkaysanaysa kuraas laakiin iyo waxay dan u tahay golayaasha jiritaanka baarlimanka labada gole waxay ku xidhan tahay dadkii oo mar un lagu noqdo ninkii soo noqon karayaana uu soo noqdo ninkii dee nin lagu bedelayaana uu sidaa raalli ku noqdo waa aniga waa igula qumanta waa karta anigu waxqabadkaygu dee muddo dheerna aniga naftaydu malaa kursigan waa fadhiyey taa waynu geli doonaa guddoomiye 2004 ayay ahayd markii guddoomiyaha golaha guurtida lagu dhiibay muddadaas aad joogtay golaha guurtida maxaad ku soo kordhisay la taaban karaa wasleed maxaad ku soo kordhisay dee waa hor fadhiyey mar haddaan hor fadhiyayoo iyagana kala rabayay dalkana ka waabwaabinayay dee maxaa kale lai dirsaday waa ninuun arday hor fadhiya ardayda ul baa lagu wadi jira kuwan ul lama ogola marka intii awoodooda ahayd waa waa dadaalayeen golaha guurtidu ama ka wakiiladuba ha ahaadeen kursiga lagu raagay mooye waxqabadkoodu runtii ma liito dhismahan iyo waa kamid ah waxyaabaha soo yaa dhismahan ku jiray waa kamid ah waxyaabaha maxaa kamid ah dhismaha dhismee kanaynu ku jirno ma kane daarta habar waliba waa dhistaaye laakiin markay noqoto waxqabadkii sharciyadeed howlo badan baa runtii la qabtay dowladdana dee mar walba waana la shaqaynaynay waana ka ilaalinaynay qaranka dowladii
awoodii waa tii hadba la jagareeya intii tabara iyagana hawl badanba ma ahayn ilaahay madaxweyneyaal xun laguma soo hagaajin laakiin dee wixii aanu aragno inaanay dan ahayn kolley waa laga talinay waa lala talinayay laakiin hawshoodu waa sharci dejinta golayaasha ma yara shuruucda golayaasha ka soo baxay ama ha ka yimaadeen madaxtooyada ama golayaashaba ha ka bilaabeen runtii ma yara dee waa ilaahay mahadi waan garta guddoomiye muddadii aad joogtay golaha waxaa la idhahdaa siyaasaddaa ku yar badan ama golihii siyaasad buu isu bedelay oo arrintii dhaqanka iyo xaggii nabadeyntii xaggan uu ka yargaay arrintaa maxaad ka leedahay dee waxaa ka leedahay horta golo waa golo siyaasadeed siyaasad buu isu bedelay siyaasad baa lagu soo doortay siyaasad baa loo doortay waa labada golee baarlimanku buu mid ka yahay waa sharci dejin weeye waana golo siyaasadeed wixii dhaqana dee waxaan isleeyahay dhibaato umaanaan geysan diinta iyo dalka iyo dalkuba inay naga nabad galeen baan qabaa waana la adeegayay maxaa kale naga rabteen xaggii nabadeynta inaad ka gaabiseen ba dadku aaminsan yihin nabadeynta meel laba reer isku qabtaan ama dowlad iyo dad dadweyne isku qabtay oo aanan joogin oo aanan ka talinin 14 sannadood anigu garan maayo tanaa ugu dambeysay hadda bariga ceelaf weyn iyo fadhigaab iyo ceerigaabo iyo baa ugu dambeysay tanaa ka xigtay oo tokaraq waa tagnay dhumaya xaggan waa tagtay dhumaya waa tagnay ma lagu dhaqmay taladiinii iyo go-aanadii waa wax kale laakiin annagu talinayo wanaag baanu mar walba ku talinaynay waajibkuna waa kaa annaga yaa waa gartay guddoomiye aad baan fahmay waxaa jirta golaha guurteeda ee somaliland ad guddoomiyaha ka tahay raggii ugu horreeyey ee lasoo xulay ee odayaasha ahaa ee beeluhu ay soo xuleen intoodii badneed way dhammaaday waxaa timid dhalinyaro dhaxal ku timida bal waa imisaad is leedahay dhalinyaro dadka dhaxalka ku yimid imakaa se odayaashii hore maxaa ka nool waa nusba nus baan is leedahay geeri iyo gabow iyo dee wax waliba waa heleen ayay jiri lahaayeen maanaan jireen wax badan oo hadda jiifa uuna way jiraan hadda howlgab jooga waaniga idin lahaa golayaashu malaa in dadku dib loogu noqdo mar waa ag tahay laakiin ma xuma howlqabadkoodu anigu wax xumaana ama dhaliil weyn oo maanta loo sheegayo anigu ma hayo maadaamaanay ahayn dadkii lasoo xulay ee loogu talagalay inay taliyaan dadku soo xuleen oo yihiin dad dhaxal ku yimid bal ka war habdhaqankoodii se u shaqeeyaan dee hadda miyay caruurtii ka ugu yari waa korto jira raggu wuxuu ku gaamuraa oo nin ku noqdaa 40 jinka ahayd wixii ka dambeeya wuu sii qululanayaa waxa 40 ka yari malaa golaha ismalihii wuu ku jira markii hore ninkii raganimo u dhashay day uma hadhin caqli iyo cilmi midna iyo khibrad midna uma dhina haddaadna saluugaysaan dee noo sheega golihiinu weli doorasho ma gelin guddoomiye sidii lagu soo xulay buu ku joogaa diyaar ma utii inaad doorasho gashaan si xeerkii lagu soo dooran lahaa ma diyaarisay goluhu isagu isma doorto halay doortana ma laha goluhu waxaa kala dira
waktigooda 6 sannadoodba mar in dadka dib loogu noqdo baa sharciyadda inoo taalta waayahay waynu isku daynay in la yidhaaho dib ha loogu noqdo dadkii ku heshiin weynaayo qaybsigii kuraasta golaha kale baynu ku heshiin weyno islama dhaafi weyn doodii in bal sida loo qaybsanayo beelaha qaar baanay ay ka go-an tahay sidaa maanta loo fadhiyaa inaanay anfacayn waxaana hortaagan muranka waayo golaa guurtidu dee beeni unbaa dib loogu celin lahaa waxaa la odhan lahaa mar dambe soo xusha hadda sharciyadda u taalli waa uun soo xulid sharci kale aynu gudbinay ma jiro kow sharcigiina waxaa hortaagan saynu u qaybsanaaba hortaagan haddii taa laga gudbo way hawl yaraanaysa murankuna wuxuu ka taagan yahay hadda waxay haddii doorasho laga dhigayo wax wanaagsan bay noqon lahay waayo dee wuxuuna la odhan lahaa soo doorta cid walayba waa beretir laguma murmeen reer Hargeysa laakiin gobolladii baaba isku haysta gobollada leh annagu aqbali mayno dee hortaan muranka ka dhirin sidee lagu xalin karaa murankiina wuxuu maray saynu xalin anigaad igu soo celinaysa anigaa igu soo celinde hadda madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay doorasho iyo dib ugu celin dadkii buu ku dhawaaqay oo ah kan dambe sooma 19 labaatanka waa golahane 19 iyo 20 dagaalana waa ku jira dagaalana qaran dagaal ku jira oo ciidankiisiiba uu frontka jooga anigu siduu dagaal ku gelaya gaashaan doorasho anigu garan maayo iyagaa dee ciidankaynu ku maamulaan nabadgelyada doorashooyinka balays kuma filla iyagi waa kuwa halkaa frontkaana laga soo kixin maayo marka shuruucdiina waa anigan ku leh kumaynaan heshiin oo beelaha qaar baa le nama anfacdo de beelaha darafyadoo kale ya beelaha darafyadoo kale ha nama anfacdo dee waxayla tahay muranka badsan oo ya inaan laga fursanayn markaa kuma filla golayaal marka inaan laga fursanayn in shirweyne qaran laysugu yeedho mooyitaanisaynugu heshiin markaynu isu nimaado soo sidaasun umulmayno talo qaranha laga yeesha in laga yeesho kama fursanayso gudoomiye xisbiga wadani waxau soo jeediyey in la kala diro komishinka doorashooyinka arrintana waa tan taagan saami qaybsiga murankeedii kuraasta baarlamaanka arrimahaasi ma sababi karaan in doorashadu ay dib u dhacdo oo waqtigeedii aanay ku dhicin basleed dee maxay u sababi weyday axsaabtu kuwa doorashada gelayaa waa iyaga kuwa lasoo dooranayaana waa iyaga hadday iyagu muran ka bixi waayaan dee doorasho see loo qaban kolley hadda waa kuwa kan malaa hadday isugu dhowdhowyiin miyay ku kala kaceen fadhiyaashii
وصعدان وليما iyagoo waxaan igu dambeysay iyagoo u socdo dee ilaahay wax khayr qabaha ka soo saaro وانا ما لقى بتاع حسب قوضاني إلا كانت ديرو كوميشن كدور شوين كويلين كوما كلسوني ma lama qabo commissionka waxaan maanta ku dhaliilo oo idhaaho hawshaasay ka baaqdeen oo qaban kari waay oo ku fashileen ma hayo mar haddaanan u haynin dhibaato ay qaranka u keeneen dee waxaan ku kala diro anigu ma arko horta hala tijaabiyo hawshoodiina way wataan anti ninkiina aan xisaabtu hadday leeyihiin aan raalli kama dhihin haddama wadani baa yaa wadani dee markay timaado xubin bay ku leeyihiin intooda ha bedeleen qolooyinka kalena ama ha ahaadeen ama guurta ha ahaadeen ama madaxweyne ha ahaadeen dee iyaguna way keeni ama xisaabta xisbiga kale mucaaridka ha ahaadeen waan garta gudoomiye madaxweynihii saddexaad weeye ee kugu soo maray intaad gudoomiyaha ahayd muuse biixi cabdi xiriirkiina waa sideen wada shaqeyneen kii saddexaad baa mise waa kii afraad waa kii saddexaad war waa kii shanaad adiga intaad intaan gudoomiyaha ahayd gudoomiye anigu ahaa waa ninkaa wax madaxweyne ah waxaanu isku qabanno oo dawladda qaran unbaanu isku qabanna iskaana ka kale adhiga uma raaco dan qaran baanu isku qabannaa ilaa hadda ninkaa waxaanu isku qabanna oo aan idhaaho aanu ku dagaalmalaa waxaa ii qarinaysaan madaxweyneyaasha dagaal baad la geli jirtay war la geli maayo madaxweynuhu markuu toosan yahay ninka la yidhaaho tuurna waa madaxweynihii khilaafka dhigay ee dowladdiisiiba xoreeye dalowga ka tuuray allah u naxariisto ka heshiina kow cigaalna isagoo waan la shaqeeyey waliba si fiican ula shaqeeyey intii hore isagoo dee dabata waan la beratamo beratankiina dee nin kursigii uu isa siinayey loogu yimi dee rafay rafaadkiina qaranka saamee daahir yaale malaa waxba ka oran maayo ninkaas waa adkeedeen bu ninkaan isugu adkeyn maayo anigu waxaan islahaa bal sidii ina cigaal kursina lama dooran dee mar haddaana lama dooran waxay la tahay kama gardarnay siilaaye iyo muuse biixina haddaydan lahayn maxaad ula dagaalami weyday dagaalkana maanta aniguna malaa da-dii gariftanka waa dhameeyey da-baa jooga iyaguna dee xilkooda way qabsanayaan gidigeen waa wada joognaa haddii aynu dhaliila ku aragno waynu odhan dee waa naga jooga waa garta muddooyinka u dambeeyey gudoomiye wuxuu muran ka soo baxaya xeerka kufsiga oo la ansixiyey madaxweynuhuna saxeexay arrintaas bulshadu aad bay uga qaylisay adiga laftaada waad iska aragteen culimada qaar iyo xisbiyadaba balka arrinkaa maxaad ka odhan lahay dee maxaan ka odhan lahaa sharciyaddii diineed iyo tii dadnimaba qur-aankaa dhameeyey kufsigu sinuu noqonayaa dee sina weliba khasab lagu daray buu noqonaya sinana qur-aankaa sharciyadiisii u dhigay ciqaab ka weynna ma jirto ta sharcigu u dhigay oo ah hadduu muxsiyeynay in la arjumo nin iyo naagba haddii ay dhalinyaro shaydaan isku qaadan yihiinna dee boqolkii jaldadoodaan raxmadda lahayn moota anuu ciqaab ka weyn taa diintu dhigtay anigu ma arko mar haddii diintii sidaa leedahay wixii kaleba waa rabshadoon baan u arka taasaa inagu filan madaxweyne waxaa amray in dib loo eego oo waxyaabaha laga cabariyo laga saarama diinta kasoo horjeeda ma la qabtaa wixii
diinta ka soo horjeeda waxaan moodaya wuuna soo maray sharcigu waa ka saaray haddii dib loogu ceshay dee haddana dib aan u eegno aan ka saaro wixii diinta ka hor imanay kow golahan guurtidaana ka mas-uula wixii diin iyo dhaqana maxaad u qaban weydeen marka xaggee xeerkaas ma xeerkii xeerkiisa ummadduba kama qaylin annana ka qaylina intaydaan asixin macnihi maxaad u qaban weydeen anagu des miyaanan samaynba mid dee kii haddii waddadiisii uu ka baydhay hadda se la soo diiday madaxweynuhu kolley waa ku khasbaya inuu dib u soo cesho dee markaasaynu ka talin laakiin kaa horena lagu dhaliili maayo waa waxaa soo baxaya maalmo dhaweed warar sheegaya guddoomiye inaad booska banaynayso guddoomiyaha golaha guurti maxaa ka jira arrintaas miyaan idin idhi waxaad leedihin waad gawowdaa ka kac war ka kici maayo baalka waa la iska riixaa ninkii doonaya kursiga inuu iga kiciyo dee ha dhacsado oo hayla beratibo hadal iyo murti goluhu waa badan yahay waa 280 haddii ay rabaan inay bedelaan awooddeedii way leeyihin simple laakiin nin cararaya mihi 14 sano ayaad imika fadhiday guddoomiye haye ma isleedahay waqtigaad banayn lahayd baa la gaadhay waktiga aada banayn lahayd kursi ayaa la gaadhay bisleed insha allah waa la gaadhi waan garta guddoomiye salmaan maxamed aadan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi sanadkii wax yar baa uga hadhay alqaabka hogaamineed siday wax u wadaan nidaamka shaqo xukuumadda uu soo xulay maxaad seed u aragta yaan la xuli lahaa madaxweyne wuu u madax bannaan yahay cidda uu u dooranayo inay la shaqeeyaan waa madaxweynaha la taliyayaashiisii weeye dee ciddii isagu u gartuisao way kula shaqayn karayaan dalkana way anfacayaan dee waxay la tahan u deyni anigu ma odhanayo hebel iyo heblaayo maanta ama ku soo dar ama ka saar odhan maayo qof wixii dhaliilana way iska muuqan doona ee markasaynu kamay bixin meesha inta 5 sannadood ka horeysana hadba tala weynu waxaynu kari karro waynu ku beerin laakiin waxay la tahay bal hamija baxsadeena aan hawsha u sii dayn waan gartay wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya baryahan hakad baa ku jira guddoomiye ya baryahan hakad baa ku jira wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ma ha laga baxo oo hal la joojiyo si ha lagu iloobaad ku talin lahayd maadaama guddoomiye golaha guurtida tahay mise dib ha loo bilaabo anu wax ka soo kordhaya maarko ninaad jiritaankaagiiba ogolay oo inaad jirto kuu ogolay oo dagaal hadda cad inagula jiro anigu ma haysto nimankan puntland ma haystee dowladdaa xamar unbaa ka madax oo dabada kaga jirta haddaanu jiritaankaygiiba ii ogolay hadda weliba isagoo aan wuxuu ka qabto maanta awoodu wax kaga qabto lahayn haddaanu ii ogolayn uu leeyahy mar walba waa baabiinaya waan duminayaa de maxaan kala hadlay markay ogolaadaan jiritaankayga waan wada hadlayn waan garta guddoomiye baryahan waxaa soo badanayay shirar beeleedada somalilan dhexdeeda shirar beelaha shirarka ay qabsanayaan weliba qaar baa dee go-aamo adag ka soo saaray oo ku talinaya in la fuliyo go-aamaday soo saaraan shirar beeleedada maadaama tahay guddoomiyaha golaha guurtida sidaad u aragta anugu beel hadday shirayso dhib uma arko laakiin qaranku waa mid
beeli uma goyso beeli uma goyso oo intay iska shirto ma tiraa haddii aynu wax u qaybsano ama sidan raalli kama nihin dee haynagu qanciyeen dee dabeetana shirweyne waa la qaban madaxweynaha ka soo bilaabeenoo golayaasha ha la yimaadeeno ahlan wasahlan markaa laakiin markaynu isla qaadano majority ahaan inaynu dib wax u qaybsano ahlan wasahlan inta ka horeysa nin waliba waa inuu majority-ga sida ay rabaan raalli ku noqdo isbedelo kala duwan baa ka dhacaya geeska africa sayba wadamada jaarka kilalka shanaad oo kale eritrea iyo etoobiya oo kale jabuuti iyo eritrea oo kale jaana sida somaliland ugu jira waa maxay baad isleedahay isbedeladaas maxaa ugu jira waxa weeye anigu isbedelada waxtar iyo wanaag baanu arkaa runtii isbedelada ka dhacay iyo dabaysha caafimaadka leh ee hadda martay hadda uu dhaqdhaqaajiyey ninka prime ministerka ah ee Ethiopia anigu waxay la tahay waa horumar waa karta aynu waxna kula qabsano kuna wada shaqeyno waa karta somaliland iyo khaatumo heshiis bay wada gaadheen gudoomiye cali khaliif kale halkan yimid madaxweyne siinaayeen xukuumadda hore heshiis la gashay ilaa hadda waxba kama fulin maxaad kala socotaa caqabadaha hortaagan heshiisyada ay wax ka fulaan haba cali khaliifna waa joogaa markii horena dee madaxweynaha iyo khaatumo waa galeen warkuyna soo gaadh laakiin ilaa hadda wax golayaasha dowladdii iyo golayaashii iyo cali khaliif iyo khaatumo isla qaateen ma jiro marka anigu runtii ilaa hadda wadee maqalun markay golayaasha sharci ahaan hor yimaadaan baan waajibkayga ka qabsan golayaashuna ka qabsan doona ma kula talin lahayd xukuumaddan cusub ee Muuse Biixi in arrintaas ay ka howlgasho sidii loo Ya. fulin xukuumaddan cusub ee Muuse Biixi ma kula talin lahayd inay ka howlgasho sidii heshiisyada loo fulin miyay kala cawdeen haa cabanayaan qolada khaatum khaatumo haa waa laga gaabiyey bay leeyihin haddii ay gaabinayeen dee dib ha ugu noqdeenoo horta iyagu ha dhamaystay kaana intayada kala horeba waan kartay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas dhawaan wuxuu yimid baran oo somaliland ka tirsan oo bariga sanaag halkaas shirar buu ku qabtay tukaraqna weli waa sidii oo la is horfadhiya arrimaha balka war tukaraqdee waa dagaalkaa kululoo iyada halkeedaa dhig waa ku jiraa dalkeennii oo lagu soo duulayna dagaal joojin mayno xuduuddii dee ha tageen inagu garowe iyo meel ka shaysa midna somaliland uma socoto xuduuddii ha tageen dalkeennii baa lagu dagaalamay gudihiisii dee dalka dhiciya mooye wax kaloo horta halkaa inala gudbooni ma jiro cabdiweli waxay la tahay anigu wuxuu ku hadlo nin miir qabo nin madaxweyne sheeganayo oo miir qabaa kuma hadleen maalin walbo dagaal baan ridaya dal baan xoreyna dalka maysagaan waa kii somaliland dee hortaa ka baxo xuduuddiisi ha ku noqdo annagu hunguri nagama hayo soomaaliya somaliland hunguri inaynu ku durugno inama hayo ninka la eryanayaa waa somaliland dadka la eryanayaa ee mar walba lasoo weerarayaa waa somaliland tanaad sheegaysa ee badhan ay yimaadeenna de hadba way soo dusaan oo waa tagaan oo waa ka tagaan dagaalna hadda ku ordi mayno ama badhan ha ahaato ama meel kale ha ahaate laakiin waxaanu jecelahay nabad baanu rabnaa in nalala qaato nala daayo waan karta haddaynu intaa kaga nimaadno guddoomiye arrintaas waxaa jirta dhowaan madaxweyne muuse biixi
waxa uu dib gacanta dowladda ugu soo celiyay qaar ka mid ah hantidii shirkadaha gaarka lagu wareejiyey sida qaydka hamaha shidaalka oo kale laabkii lagu baariyay bal arrintaa ka war dee kuma diidanin hay haamuhu iyo shidaalku waa istaraatiijig gacanta dowladda dhexena waa ku wanaagsan deked iyo haamaba kuma diidanin daan kula shaqeyno waa karta colaadahan beelaha soo noqnoqonaya inta badan sida xeelaf weyn oo kale iyo koonfurta gobolka Sool maadaama wadnin weyn soo jireenada waxay sababaha soo celcelinaya maxay maslaa iyo sababihii weligood ba soo celcelin jiray hay weligeedba qabaayil waa isu leeyihiin hay qabaayilku unbaa isdilayaan dee u gurmooyin mooyee oo kala qaban mooyee wax kale anigu ma arko intiina waynu wadnaa haddaa weli la jiraa tan xagga dharkaygeeye iyo Sool taana wixii laga qaban karayay laga qabay laakiin weli ducayn baa jirta waa dee aan ducaysan waa laakiin mar walba gurmadku way nagu waajib ma islaadahay doorashadu waqtigeediiba ku dhacaysaa guddoomiye markaas waxyaabo badan eegto oo waaqaco jirta doorashadu waqtigeedii waa u muddaysanta dagaal kululna waa ku jiraa baa ku hay qabaayilkiina waa kuwana wayna ducaynayaan nabad haddii la helo dee waa la qabanaya muddaa inaga xigta ma 8 bilood ba meelaha waa bada 8 bilood wey yaa ilaahay nabad haynagu gaarsiiyo waa gartay ugu dambeyntii guddoomiye maxaad u soo jeedin lahayd bulshada golahaaga xukuumadda bal maxaad maanta fariineed u sheegay kadib waxaan u soo jeedinayaa waraan gacmaha isqabsano innaga oo reer Somaliland oo dadis ah oo isdhaqanaya ah aynu dalkeena la ilaashano oo cadowga ilaalino waa miyaadan xiiqin